السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ليه هذا ما أنتي ملو بدون دافع كجوتين كسر دبادة مرة لبعض مثل حد برتي اليوتيوب كا إن قف إذا الله ونوح مش يقدر داود يسمى برتي اليوتيوب كا نوح عيجة إن أشوف لما تحدونا هنا أبديت كريو أما إذن شيء وحيالها مرتي إن سوكرنا حد واحد سوكر أساس أبلارن مجرى لكن مدتي والله أبلاجرين لها ريفي لوت تيجا أيان نوصل فضل إن شاء الله بإذن الله الكريم كلي إن ودنا وجيه وقت الأساس نجمع حقه أتبيشان هذا كل جنوا سبتمبر بيش ku xigto October ay furmi doona gudaheeda waliba afafka hore tobanka hore ay furmi doona marka waxaan doonayaa in soo update gareeyo idin soo sheego sidii ay wax u jiraan ama sidii maaragtay loo apply gareyn doono odo waa idin sheegay already wax walba oo maaragtay loo sidii loo apply gareeyo first of all ka first image ka first interface ka mar hore in la wadaagay oo sidoo waa aragtay instruction ka idin ku hagaagay ama maaragtay u apply gareynaysid mar hore aan ka soo hadlay insha Allah hadana haday suurtagal noqoto waa idin soo dhigi doona hadii ay codsiga bato insha Allah كريم وحي معركتي برنامج إنكو إسبادنا وادل سو وذاي كرتين وحاجة جرتو سيدا هاي إنسان شيء أما سيفركا وسجلي كرتا لحد بلود قدام بيس أيون نخون كلا سيفركا from هذا وحي كهري أدي سدح بلون أفر بلود وحي كهري وعاد سيفركا صدو أدي أفر بلود كهري هذا سيفرك صدق شيء حد وقع بلا جرين كرتا ريب مالها هدي أو معركتي حد صدق شيء نقول problem ساس مكينة وبس كعادي سيفر ومحلقارة وأدي ستيت كاتبو سوان تهاي نوع عادي كتهاي marka dadka badana way isbedelaan san walba wuji nooc kala yeeshaan sanad walba qofku soo uma ekaanayo sanadkii qofka wujigiisa san ku ogeyd uma ahaanayo kulli aniga waa aragtay waa sanadka hore markaan idin sheegay in la asal loo abalaagreynay wujigiisa sidaan ma ahayn waxyaalo badan isbedelay waa dareemi kartiin ma aragtay marka waxaa la doonayaa 6 bilood u dambeysay ayaa la rabaa oo bishaan ku jirto October ku jirto wixii ka dashan bil ka horeysay ayaa laga rabaa sawirkaaga inuu ahaado marka sawirka waa idin sheegay waxaa laga doonayaa inuu background-kiisa cadaan ahaado inuu ahaado square-kiisa 600 times 600 ahaado laga doonayaa pixel fiican oo maaragtay GB waa soo qoray wax walba haddii kan xagga la soo dhiga ninka arka doontiin marka waxa hadda muhiim ku ah oo maaragtay oo inuu ku apply gareynaysa ah sawirkaas iyo baasaboorka hadda waqti waa haysataa waxa alan gareynayaa dadkan wali apply gareynin ama wali codsanin baasaboorkooda in bishan gudihiisa ay ku heli karaan ku helaan ama afafka hore ee maaragtay October inay helaan sidii ugu apply gareeyaan waqtina ugu helaan maaragtay in usan u dhaafin after horta ma dhaafayso waqti badan ma dhaafayso qofka hadda apply gareeya passport oo wadan fiican joogo oo wadanka maaragtay kulli waqtiga lagu helo duration-ka oo qaadanayo oo idin sheegaya wadan walba hadda sida Soomaaliya waxa maqlay almost 2 to 3 weeks oo qaadanaya marka waa ka soo gaarsiin kartiin idinkoo ayagoo furman soo gaarsiin kartiin hadda hore u sameysatay dad badan ila soo hadlay oo ii sheegay inay maaragtay already passport-kooda diyaarsadeen wax walba gacanta ku haystaan ay sugayaan un bahash inay furmato habeenkii furmato hore ka xariiraan dhahay horta waqtiga xariisid kulli habeenka koowaad waa bajam mashquul waaye oo yani program si fiican uma shaqeynayo dad arki doontiin insha Allah inaan idin gaarsiiyo kuwii hore kulli way soo arkeen habeenada u hooyayso especially first night-ka waxyaalaha dib u dhaco marka waa la furaa laakiin ayadoo la furay hadan ma aragtay yar culis jira jaam jira waa dad badan adduunweynaha dhan ayaa apply gareynaya waxaana xasana keenaya mashquulka badan okay mid kale xigto waxa weeyaan waa apply gareyn karta adiga habeenkii shaqada habeenkii xad wixii ka dambeeyay ayaa iga qurux badan aniga maaragtay adiga qasab ma aha in waqtiga adiga gooli ah ama waqti ii sheeg idhahdid oo maaragtay waqti hibil oo la apply gareyn kara ku dhaw apply gareysatid xilliga adiga you feel like oo maaragtay happy ku tahay oo waqtigaas inuusan ku dhaafin oo problem wax ku keenaynin oo adigana maaragtay mashquulkaaga badneen iska xariirsan kartaa waqti waa haystaa October dhan haystaa November 10 hore haystaa marka intaas waa apply gareyn kartaa oo waqtiga kaama dhicin xagaas haddii ay maaragtay isleedahay raashin wax u buuxi raashinka ma fiicno degdeg ma fiicno waxa wanaagsan oo qurux badan inuu qofku waqti qaato marka waqti qaad ka bacdi oo saas ku apply gareeyo medical waxa weeyaan sawirka waxa idin sheegay in background-kiisa laga rabo cadaan background nooc kale laga marba cadaan muhiim ah oo target la saaraa waxa kale oo muhiim ah in sawirka la edit gareynin oo sawirka original-kiisa digital photo lagu sawiray digital inay ahaato oo mid wanaagsan camera fiican ahaato wajiga special si fiican loo arki karo oo muhiim ah ma aha in sawirka edit gareyso qurux badan bahashan kuma qaadanaysid ma aragtay wax kale waxa uu ku galaysaa sharci weeyaan kulli passport-ka marka la apply gareynayo lama maleynaya sawirka lagu qurxinayo marka sawirka waxa laga doonayaa mid standard-kiisa iska high up laakiin aan edit gareysnayn sawirka photoshop ya jiro dadka isticmaalaan oo fiicneen photoshop-ka isticmaalna no edit
edit ma laha sawirka tooskiisa uu apply gareeyo sida originalka ah yani waxaa laga doonaya qofka hadduu dakhar wax leeyahay haddii maybe sign camal noocyo kale leeyahay qofka marka caadi loo arko wejigiisa iyo marka sawir la arko isku mid maaha marka la edit gareeyo waayo qofka wejigiisa smooth inuu yahay laga yaabaa markaad sawirka ku aragtid markaad aragtid oo real life ku aragtidna inuu qofka maybe nabar meelahan ugu yaalo ama dakhar meelaha ugu yaalo oo maaragtay specific gareyn karin oo maaragtay qofkan ama asaga ahayn dakhar ku yaalo qofka marka physicalka wejigaaga si fiican loo arkaa la doonaya muhiimada tahay marka ay edit gareynin background kasna cadaan ha ahaado baasaboorkaana gacanta ku hayso please isdiyaari waa soo dhow yahay muddo badan nagama xigto koley toddobaada naga xigaan dhihi karaa haddii u badato waa 3 wiig ama 4 wiig naga xigto kabacdi way furmaysaa marka dhammaantiin waxay u rajeynayaa guul aan dhammaan insha allah bidin lahay karin guulista soo dhantii Soomaaliyeed waa joogtiin videogaasna maanta intaan doonayna uga hadlo assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh